صعب 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 بدن هالوتمو صعب 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 بدن هالوتمو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحوي ترتان لوغو باقي بوشي خير يضمر يا أبو سركعة صعب 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 بدن هالوتمو صعب 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 بدن هالوتمو جيجيو كرام وضويي نقم بركمتا وقيو حناقذي يا عيال تكابرين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداشada aan qadarino waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka madaxa bannaan ee Riya TV barnaamijkana waxa idin socodsiiyay isla mar ahaantaan idin soo diyaariya anigoo ah Abubakar Farxaan Cabdi Rooble Abubakar Abka qodobada aynu toddobaadkani barnaamijkeena ciyaaraha idin ku haynana daawadayaal waxa kamid ah natiijooyinka ay ku soo dhamaadeen kulamadii ugu dambeeyay ee toddobaadkan gudihiisa laga ciyaaray horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub iyo waliba sidoo kale horyaalka qaaradda Yurub ee lagu magacaabo Champions League oo si rasmi ah u furtay iyo kulamo ugu horeeyay horyaalkaasi oo la ciyaaray natiijooyinka ay ku soo dhamaadeen dhamaantood ba idin la wadaagi doono intaynu barnaamijkeena ku jiro daawadayaal sidoo kale waxaan idin haynaa oo aynaan ka tagi doonin falanqeyno sheekooyin iyo faaqidaado ku saabsan kooxahaasi waaweyn ee caalamka ka dhisan gaar ahaan kuwa qaaradda Yurub iyo waliba ciyaartooyga oo ciyaara iyadana waxaynaan hilmaami doonin xubinteenii xirfadda ciyaartooyga oo aynu ku soo qaadano muuqaal ka turjumaya mid ka mid ah ciyaartooyga ciyaara dhanka kubadda cagta daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo ka xiiso badan isla mar ahaantaana ka faahfaahsan haddaynu ku bilowno tartanka Champions League oo toddobaadkan gudihiisa si rasmi ah u furmay kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan wadanka Faransiiska ayaa guul ay u qalantay ka gaadhay kooxda reer Spanish ee Real Madrid kulankeedii ugu horeysay group A tartanka Champions League kadib markii ay afka ciida u dartay 3-0 qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hogaaminayso kooxda martida loo ahaa ee PSG daqiiqadii 14aad laacibka reer Argentina ee Angel Di Maria ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Paris Saint-Germain ama PSG wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 ay ku gacan sareyso kooxda PSG kadib markii uu goolkani ka caawiyay saaxiibkiis Barnet markale Angel Di Maria ayaa ruuxay shabaqa kooxda Real Madrid daqiiqadii 33aad wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-0 waxaana goolkaasi ka caawiyay isla mar ahaantaana u fududeeyay saaxiibkiisa Idris Gune waxaana qaybta hore ciyaartu gabi ahaanba ku soo gabagabowday 2-0 ay ku hogaaminayso kooxda PSG oo iyada garoonkeeda lagu ciyaarayay markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa waxay garoonka la soo galeen dardar xoogan iyo waliba weeraro halis oo ay isku qaadayaan iyagoo sameeyay fursado loo maleyn karay goolal Thomas Miller oo caawin ka helay saaxiibkiis Barnet ayaa daqiiqadii 9aad ee dhamaadkii ciyaarta si toos ah u niyad jabiyay kooxda Real Madrid waxaana ciyaarta ka dhigay 3-0 ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay ama ku soo gabagabowday 3-0 dhabarka loo saaray kooxdii martida ahayd ee Real Madrid oo iyadu halkaasi kala noqotay murugo iyo uur ku taalo aanay filayn ربما مش حاضر وهذا برنات وكرة جول كرة جول غدار
غدار دي ماريا في هذا المشوار. زلزال 15 انتصار 6 تعادلات. هذه جول فجرت دي ماريا. لا 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 ولا 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 دي ماريا باليسارية يدمر ريال مدريد بطريقة وحشية. كرة جول قلنا مشاهدينا الكرام في 3 دقائق يريد باريس سان جيرمان 2 ريال مدريد، يريد معاقبة الفريق الملكي، يريد معاقبة سلطان. kooxda Atletico Madrid iyo Juventus ayaa dhibcaha ku kala qaybsaday garoonka maanta ee Metreno ee kulankii ugu horeeyay Group D ee tartanka Champions League kadib markii ay ku kala baxeen barbaro 2-2. qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay Eber iyo Eber ay isku dhaafi waayeen labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Juventus. markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa waxay garoonka la soo galeen dardar xoogan iyo dadaal ay ugu jiraan sida ay goolal u keeni lahaayeen iyagoo sameeyay fursado cajiib ah oo loo mareyn galay goolal. daqiiqadii 48aad kooxda martida ahayd ee Juventus ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ay ka dhigtay ciyaarta iyadoo uu goolkaasi u dhaliyay kooxda Juventus ciyaartoyga reer Colombia ee Colorado iyadoo uu goolkaasi ka caawiyay amaba uu fududeeyay saaxiibkiisa reer Argentina ee Gonzalo Higuain. Pales Matuidi ayaa isaguna daqiiqadii 65aad ciyaarta ka dhigay 2-0 ay ku hogaaminayso kooxdii martida ahayd ee Juventus kadib markii uu goolkaasi ka caawiyay Alexandro. laakiin daqiiqadii 70aad Atletico Madrid ayaa la timid gool waxaana ciyaartu ay noqotay 1-2. goolkaasina waxa Atletico Madrid u dhaliyay ciyaartoyga lagu magacaabo Stefan Savic oo caawinta goolkaasi ka helay Jose Gomez. daqiiqadii 90aad ee dhamaadkii ciyaarta Hector Herrera ayaa ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2 waxaana goolka ka caawiyay Kearton Teviro. ugu dambeyntii ciyaarta u dhaxaysay labada kooxood ee Juventus iyo Atletico Madrid ayaa ku soo gabagabowday 2-2 ay isbari waayeen labada kooxood. اللي هو غونزالو هيغوايين يلعب كرة في الجهة اليمنى وصلت إلى كوادرادو خطيرة 3 بكرة تسديده الكافاتيرياس في مرمى الرخي بلانكوس يسجل ويتقدم يوفنتوس هنا في الواندا متروبوليتانو. هدف في غاية الروعة في غاية الروعة بأقدام اللاعب الكولومبي كوادرادو. هذه الكرة هذه المرتدة هذه كرة بونوتشي أمامية ملعوبة وصلت إلى من انظر إلى من ينطلق إلى من يصل الكرة بأقدام غونزالو هيغوايين والمحاولة بعد ذلك في الجهة اليمنى. قلت 3 ضد 6 3 ضد 6 الشجاعة تقرب الشجاعة. طاقم حكام انجليزي بقيادة فيلدون. كرة بمحاولة رأسية هدف ثاني يأتي الآن الهدف الثاني يأتي ومن يسجل هو الفرنسي بلايز ماتودي. رأسية من عرضية مثالية تهزم اوبلاك وتعلن عن ثاني الأهداف الكرة في غاية الروعة. يوفي مختلف في شوط ثاني شخصية في غاية الروعة يظهر من خلالها يوفنتوس ويضرب بقوة في واندا متروبوليتانو ويسجل ثاني الأهداف. مرتدة سريعة جدا بأقدام كريستيانو وصلت إلى دانيلو أو ألكساندرو. عرضية من البرازيلي وراسية جاءت عن طريق تعطيك انطباع يعني أتلتيكو قادر على العودة. كرة بمحاولة راسية خطيرة يعودون يسجلون ويقلصون الفارق. يأتي الرد بشكل سريع وأتلتيكو براسية من ستيفان سافيتش يعلن عن هدف في تقليص الفارق الآن. يعلن عن تقليص الفارق. قلت ما في جاءت من هذه المحاولة سليمة
في غاية الأهمية. ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية. التعديل والمكسيكانو هيريرا يسجل، يضع كرة في شباك تشيزني ويعلن عن هدف التعادل. هدف التعديل يأتي في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة، رأسية في غاية الروعة. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa guul raaxo leh ka gaartay dhigooda Shakhtar Donetsk oo ay ku booqdeen stadiumkooda lagu magacaabo Metalist kulankeedii ugu horeeyay group C ee tartanka Champions League kadib markii ay ku garaaceen 3-0. qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hogaaminayso kooxda reer Ingiriis ee Manchester City. daqiiqadii 24aad Riyad Mahrez laacibka Real Algeria ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester City waxaana ciyaarta ka dhigay 1-0 kadib markii uu goolkani ka caawiyay saaxiibkiisa Ilkay Gundogan. mar kale daqiiqadii 38aad Manchester City ayaa hogaanka dheereysatay waxaana ciyaarta ka dhigtay 2-0 waxaana goolkaasi uu dhaliyay saaxiibkii markii hore kubadda caawinteeda lahaa ee lagu magacaabo Gundogan waxaana markiisa goolkan isaga ka caawiyay saaxiibkiisa markii hore uu goolka ka caawiyay Riyad Mahrez. qaybta hore ciyaartuna gebi ahaanba waxay ku soo gabagabowday 2-0 ay ku gacan sareyso amaba ay wadato kooxda Manchester City. markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa waxay garoonka la soo galeen dardar xoogan oo ay midda kale ku doonayso inay gool kaga dhaliso isla mar ahaantaana ay sameeyeen dadaalo loo filan karay goolal. daqiiqadii 76aad Gabriel Jesus laacibka reer Brazil ee da'da yar ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxda Manchester City waxaana ciyaarta ka dhigay 3-0 ay ku gacan sareyso kooxda Manchester City oo ku ciyaareysay garoonka kooxda Shakhtar Donetsk waxaana goolkaasi ka caawiyay saaxiibkiisa reer Belgium ee Kevin De Bruyne. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo ilaatay amaba ku soo gabagabowday 3-0 ay guushu ku raacday kooxda reer Ingiriis ee Manchester City oo iyadu marti u ahayd kooxda Shakhtar Donetsk. تسديده وجول الغايب وجول، حطها في الجول رياض محرز. يا سلام، وحده على الجهة اليمنى يقاوم ويحارب، يحاول أن يراوغ ويمرر ويسدد، جاءته على طبق في المكان المناسب. أول أهداف رياض محرز هذا الموسم في دوري الأبطال أمام شختار في الدقيقة 25. كرة القدم رياض دخل بينية خطيرة، بابا جول. أعطيه الكرة لرياض يفعل ما يريد، استلمها دخل حطها لجوندوغان وجول في الدقيقة 38 من عمر الشوط. رياض سجل جول ورياض منح جول. أول هدف من رياض وثاني الأهداف من جوندوغان على الجهة اليمنى، استلم بيسراه مرر جوندوغان حطها باليمنى في الجول. رياض مراقبة رائعة حطها لجوندوغان. أوي 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 سرعة فائقة توصل لي جابرييل جيسوس والثالث. جابرييل جيسوس والثالث ينهي المباراة بالثلاثة قبل نهايتها بربع ساعة. 9 أهداف جابرييل جيسوس في دوري الأبطال من 15 مباراة لعبها. كرتان واحدة من كيفن دي بروين في اتجاه جابرييل جيسوس، والهدف الثالث عند الدقيقة 5. kooxaha Borussia Dortmund iyo Barcelona ee ka kala dhisan horyaalada wadamada Jarmalka iyo Isbaanishka ayaa dhibcaha ku kala qaybsaday garoonka Signal Iduna Park kulankoodii furitaanka wareega guruubyada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan kadib markii ay ku kala baxeen 0-0. qaybta hore ciyaarta ayaa ku soo idlaatay amaba lagu kala nastay 0-0 ismari waayeen labada kooxood ee Borussia Dortmund iyo Barcelona. markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa waxay garoonka la soo galeen dardar xoogan iyo waliba dadaal iyagoo sameeyay fursado cajiib ah oo loo maleyn karay goolal. daqiiqadii 57aad kooxda martida loo ahaa ee reer Jarmal ee Borussia Dortmund ayaa heshay rigoore laakiin waxaa ka qasaariyay xidigooda lagu magacaabo Marco Reus. tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa dubaba shaxda kooxdiisa ku sameeyay isbedel wuxuuna ciyaarta ka saaray
xidigaha Fati iyo Busquets wuxuuna bedelkooda keensaday Lionel Messi iyo Rakitic balse ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo ilaatay barbaro ever ay istaafi waayeen labada kooxood ee Borussia Dortmund oo garoonkeeda lagu ciyaarayay iyo kooxda Barcelona iyadoo markaasi marti ahayd iyagana waxay ciyaar ka tirsan Group E tartanka Champions League ay dhaxmartay kooxaha ka kala dhisan horyaalada wadamada Talyaaniga iyo Ingiriiska waa Liverpool iyo Napoli waxaana garoonkeeda lagu ciyaaray isla markaana marti loo ahaa kooxda Napoli waxaana ay ciyaartu ku bilaabantay weerar kala duwan balse kooxda Liverpool ayaa dhulka lagu jiiday 2-0 qaybta hore ciyaarta gabi ahaanba labada kooxood ee Liverpool iyo Napoli way ismari waayeen midna kale waxba kama aanay dhalin ciyaartuna qaybta hore waxay ku soo dhamaatay ama ku soo ilaatay eber ay siman yihiin Napoli iyo Liverpool markii dib la isku soo laabtay qaybtii dambe ciyaarta waano iyo waliba talooyin ay macallimiintu soo siiyeen labada kooxood waxay halkii ka sii wadeen weeraradoodii kala duwanaa ee midda kale kaga doonaysay inay gool kaga dhaliso iyadu markaasi guusha loo yeeto daqiiqadii 82aad ee dhamaadka ciyaartoyga lagu magacaabo Darius Martinez ayaa kooxda Napoli u dhaliyay gool ciyaartana ka dhigay 1-0 ay ku gacan sareyso kooxda Napoli iyadoo markaasi garoonkeeda lagu ciyaarayay goolkaasi ayaa yimid kadib markii kooxda Liverpool ay qalad ku gashay ciyaartoy kamid ah kooxda Napoli oo ku jiray meesha loo yaqaano xariiqatul darbatu jazaa goolkaana waxa uga faa'iideeyay kooxda Napoli ciyaartoyga lagu magacaabo Darius Martinez ciyaartuna waxay noqotay 1-0 ay ku gacan sareyso kooxda Napoli dhamaadka ciyaarta daqiiqadii 9aad waxaa mar kale u suurto gashay kooxda Napoli inay gool qurux badan ka dhaliso kooxda Liverpool waxaana goolkaasi u dhaliyay kooxda Napoli ciyaartoyga lagu magacaabo Fermero Llorente ciyaartuna waxa uu ka dhigay 2-0 ay ku gacan sareyso kooxdii garoonkeeda lagu ciyaarayay ama martida loo ahaa ee reer Talyaaniga ee Napoli Liverpool ayaa niyad jab iyo waxaana ay filayeen ku noqotay goolkaasi iyagoo markii hore isku hawlayay ama isku dayay inay goolka barbaraha keenaan ama ka badiyaan maadaama ay daqiiqado yar oo kooban arsanaayeen balse goolkaasi Liverpool waxa uu ku noqday laf dhuun gashay gabi ahaan ciyaarta u dhaxaysay Napoli iyo Liverpool waxay ku soo gabagabowday 2-0 dhabarka loo saaray kooxda Liverpool oo iyadoo halkaasi kala soo noqotay murugo iyo uur ku taalaanay filayn isla markaana ku fulatay tartanka championka guuldarrada xanuun badan hadaynu intaasi kaga nimaadno natiijooyinka ay ku soo dhamaadeen kulamadii toddobaadkan gudihiisa lagu furay tartanka Champions League ee kooxaha Yurub imikii hadaynu ku bilowno horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League kooxda Arsenal ayaa guul soo laabasho ka gaartay dhigeeda Aston Villa Emirates Stadium ayay ciyaartaasi ka dhacday kadib markii ay kaga adkaatay 3-2 kulan ka tirsan horyaalka Premier League daqiiqadii 20aad Aston Villa ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana ay ciyaarta ka dhigtay 1-0 ciyaartoyga u dhaliyay kooxda Aston Villa goolkaasina waxa lagu magacaabaa John Megan waxaana goolkani ka caawiyay Anwar Al-Ghazi qaybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed fiican waxayna sameeyeen fursado halis ah oo loo firan karay goolal daqiiqadii 59aad kooxda martida loo ahaa ee Arsenal ayaa heshay rikoodhe ama gool kulaag waxaana gool u bedelay ciyaartoyga lagu magacaabo Nicolas Pepe oo ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 laakiin daqiiqadii 60aad Aston Villa ayaa mar kale hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana ay ka dhigtay 2-1 waxaana u dhaliyay goolkaasi kooxda Aston Villa ciyaartoyga lagu magacaabo Wesley oo caawinta goolkaasi ka helay saaxiibkiis Jack Cartledge daqiiqadii 81aad ee dhamaadka ciyaarta mar kale Arsenal ayaa heshay goolka barbara waxaana 2-2 ciyaarta ka dhigay Callum Chamberlain laakiin daqiiqadii 84aad Pierre-Emerick Aubameyang laacibka reer Gabon ee Afrikaanka ayaa ciyaarta ka dhigay 3-2
ay ku horumartay kooxdii markaasi garoonkeeda lagu ciyaarayay Arsenal. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo gabagabowday 3-2 ay guushu ku raacday kooxda Arsenal oo iyadu markii hore wadnaha afarta ku haysay maadaama laga horeeyay goolal. حاولت المرور أنور الغازي الكرة العرضية ملعوبة من الغازي وفي الجول يا للمفاجأة يا للمفاجأة يهيمن الأرسنال يسيطر الأرسنال يهدد الأرسنال لكن هل يسعد الجماهير الصامتة التسديدة وفي الجول ها قد عاد الجنرز وها قد ردت الابتسامة الضالة إلى أصحابها أخيرا بعد طول انتظار. إلى جاك كرينيتش يبحث عن المرور والانطلاقة والعرضية. الله يا للجنون يا للجنون ويا للعودة ويا للفرحة لجماهير السونفيل ولكن ضاعت الكرة ما زالت قائمة. الله جاء الرد وجاء الجواب ويا صبر الأرض على هذا الهدف الذي جاء أخير. هل تنقلب النتيجة؟ أوباميانغ الله أوباميانغ ويا للعودة ويا للفرح. Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaadhay kooxda Chelsea garoonkeeda Stamford Bridge kadib markii ay kaga soo adkaatay 2-1 kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee wadanka Ingiriiska. qaybtii hore ee kulanka la wada sugayay ee ugu adkaa toddobaadkani horyaalka Premier League ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku gacan sareyso kooxda Liverpool. daqiiqadii 14aad Liverpool ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta kadib markii Alex Arnold uu dhaliyay gool aad u qurux badan wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 iyadoo goolkan uu ka caawiyay saaxiibkiis Mohamed Salah. 30 daqiiqo markii ay ciyaartu ahayd xidiga reer Brazil ee jooga dheer leh Firmino ayaa ciyaarta waxa uu ka dhigay 2-0 caawinta goolkaasina waxa uu ka helay saaxiibkiis Andy Robertson. qaybta hore ciyaartuna gabi ahaanba waxay ku soo gabagabowday 2-0 ay ku gacan sareyso kooxda Liverpool oo markaas iyadu marti ahayd. markii dib la isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican waxayna sameeyeen fursadaha halis ah oo loo filan karay goolal. daqiiqadii 17aad ee qaybtii dambe ciyaarta madaalaha reer France iyo kooxda Chelsea ee N'Golo Kante ayaa ciyaarta ka dhigay 2-1 laakiin ugu dambeyntii kulanka la wada sugayay ee u dhaxeeyay kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa waxa uu ku soo idlaaday 2-1 ay guushu ku raacday kooxda Liverpool oo markaasi marti u ahayd kooxda Chelsea. من سيفعلها يبدو أنه أرنولد جول يا سلام يا سلام يا سلام تعظيم سلام لأرنولد الفنان هذا الموسم. روبرتسون معاه جول روبرتسون يوزع روبرتسون جول ما زلت نحكي ما زلت نقول الصيادون الماكرون أولهم فيرمينو مرعبهم فيرمينو كانتي شنو هذا لا 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 هدف عالمي
kooxda West Ham United ayaa guuldaroniyo jaba ku dhigtay kooxda Manchester United garoonkeeda London Stadium kadib markii ay kaga adkaatay 2-0 kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaaminayso kooxda martida loo ahaa ee West Ham United. daqiiqadii 44aad kooxda West Ham United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta iyadoo uu 1-0 ka dhigay xidigooda Andre Yamakelo kadib markii uu goolkani ka caawiyay saaxiibkiisa Philip Anderson. markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed fiican ama dardar xoog leh waxayna sameeyeen fursado halis ah oo loo firan karay goolal ama loo malayn karay. laakiin daqiiqadii 84aad Aaron Caldwell ayaa soo gabagabeeyay ciyaarta waxaana ka dhigay 2-0 oo ay ku gacan sareyso kooxda West Ham United oo garoonkeeda lagu ciyaarayay. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay ama ku soo gabagabowday 2-0 ay guushu ku raacday kooxda yar ee West Ham United waxaana dhulka la jiiday kooxda Manchester United oo iyadu markaasi marti u ahayd kooxda West Ham United. وفرصة حقيقية لكريستال وتصويبة جول أخيرا جول 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 أول مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. واردي يتألق يتجمل يصنع الفارق بتصويبة قوية في أول جملة تكتيكية في أول جملة حقيقية. مقابل ثاني تراوري ينطلق تراوري في الجبهة اليمنى يلعب العرضية وأوبا التعادل التعادل التعادل. الله 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 على هذه المباراة. جوتا يسجل التعادل في الوقت القاتل في اللحظات الأخيرة ونقول عدالة السماء تهبط على استاد المباراة. يمنى وباليسرى يخرج من المراقبة الكرة البينية هاي ميليكو تسديد جول. اللعبة أمام دفاع يتفرج في مكانه ولكن يتفرج جاي مولينكو استلمها بيمناه وسددها بيسرى في الجول من أول فرصة وأول لعبة وأول لقطة جميلة. لاعبين كبار كريسويل مرة ثانية وبا با 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 جول جول. Manchester City ayaa xasuuq baan u geysatay kooxda Watford kadib markii ay ku garaacday 8-0 kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League oo ka dhacay garoonka kooxda Man City ee lagu magacaabo Etihad Stadium. qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 5-0 ay ku hogaaminayso kooxda martida loo ahaa ee Manchester City. daqiiqadii koobaad ee ciyaarta David Silva ciyaartoyga reer Spanish ayaa ciyaarta ka dhigay 1-0 hogaankana u dhiibay kooxdiisa Manchester City kadib markii uu goolkani uu ka caawiyay saaxiibkiisa reer Belgium ee madaalaha ee Kevin De Bruyne. isla qaybta hore ciyaarta daqiiqadii 7aad mar kale kooxda Man City ayaa heshay rikoodhe waxaana goolka u bedelay rikoodhahaasi ama uga faa'iideeyay kooxda Man City ciyaartoyga reer Argentine ee Sergio Aguero. ciyaartana waxa uu ka dhigay 2-0 ay ku gacan sareyso kooxda Man City oo garoonkeeda Etihad Stadium lagu ciyaarayay. daqiiqadii 12aad Manchester City ayaa hogaanka sii dheereysatay waxaana mar kale ciyaarta ay noqotay 3-0 goolkaasina kooxda Manchester City waxa uu dhaliyay ciyaartoyga reer Afrika gaar ahaan wadanka Algeria lagu magacaabo Riyad Mahrez. Bernardo Silva ciyaartoyga reer Portugal ayaa markiisii ismuujiyay isaguna daqiiqadii 15aad ayuu ciyaarta ka dhigay 4-0. intaasoo kaliya kuma aanay ka bandhiga goolasha kooxda Man City ee kulankani xitaa Nicolas Otamendi ayaa gool dhaliyay daqiiqadii 18aad waxaana goolka ka caawiyay xidiga ay isku wadanka ka soo jeedaan ee Sergio Aguero. ciyaartana waxay sidaasi ku noqotay 5-0 ay ku gacan sareyso kooxda Man City. qaybta hore ciyaartuna gebi ahaanba waxay ku soo idlaatay 5-0 ay ku gacan sareyso kooxda Man City markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta kooxda Man City oo
ku ciyaarayay garoonkooda Etihad Stadium ayaa waxay garoonka ku soo gashay dardar xoogan iyadoo sameeyay fursado cajiib oo loo maleyn karay goolal. Daqiiqadii 49aad Bernardo Silva ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta waxaana ciyaarta ka dhigay 6-0 iyadoo uu goolkani ka caawiyay saaxiibkiis David Silva. mar kale laacibka reer Portugal Bernardo Silva ayaa gaaray shabaqa Watford wuxuuna dhaliyay goolkiisii saddexaad amaba ka loo yaqaano hat-trick wuxuuna ciyaarta ka dhigay 7-0 waxaana goolkani ka caawiyay mar kale ciyaartoyga reer Belgium Kevin De Bruyne. daqiiqadii 85aad ee dhamaadka ciyaarta Kevin De Bruyne laacibka reer Belgium goolkii isagu toddobaad caawintiisa lahaa ayaa ciyaarta ka dhigay 8-0 ay ku gacan sareyso kooxda Man City. gebi ahaan iyo guud ahaan ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 8-0 lagu xasuuqay kooxda Watford iyadoo marti u ahayd kooxda Man City. بثلاثية نظيفة. أمامنا هنا انطلاقة حول من جانب دي بروين الضغط المبكر والهدف السريع. الهدف السريع هنا عن طريق اللاعب ديفيد سيلفا بعد مرور حوالي 51 ثانية يسجل ديفيد سيلفا الهدف السريع الممتع في هذه اللقطة في هذه اللحظة مع هذه التمريرة من جانب دي بروين علشان اللقاء يعني بنشوفه بشكل آخر مع هذا الهدف المبكر. شوف البداية وادي أمامنا الاستلام هنا والتترك كان في الدوري في 2017-2018 أجويرو ودى بن فوستر وضعها له بشكل مميز جدا النجم الارجنتيني كون اجويرو اللي بيسجل الهدف رقم 171 ليه في البريمير ليج. كان هداف الدوري الانجليزي الممتاز في 2015 وواحد من النجوم الحقيقه في فريق نادي مانشستر سيتي. كان امام السبيرز 2-0 في هذا اللقاء. وادي امامنا محرز يسدد الهدف الثالث اول اهداف محرز في الدوري الانجليزي الممتاز في هذا الموسم. يضع هذه الكرة بهذه المهارة وبهذه يعني فيها توفيق اكيد لكن على طول كرة في الشباك والنتيجة اصبحت 3-0 بعد 12 دقيقة. بص محرز امام واتفورد اللي يعني حتى الان متواضع جدا مع قدوم المدرب. والرابع امامنا هنا يسجل المتألق البرتغالي برناردو سيلفا ثاني اهدافه هذا الموسم بعد ما كان سجل في مرمى فريق نادي برايتون وهدف ياتي في الدقيقة امامنا 14 من عمر اللقاء. بص امامنا الركنية التمركز مش موجود الرقابة مش موجودة الرأسية كانت في اللقطة الماضية من جانب أمامنا هنا أوتاميندي ويأتي برناردو سيلفا يقبل هذه الكرة أمامنا. أوتاميندي بيتقدم يصنع لمسة من جانب ديفيد سيلفا إلى كون اجويرو المهرجان أوتاميندي كان مسجل من قبل في مباراة 2017-2018 في باكريج رود اللي كانت 6-0 لكن بص شوف الفاول اتعمل ازاي. ديفيد سيلفا يمرر كولا لاجويرو واوتاميندي امامنا هنا اللي كنا بنتكلم عن مشاكله الدفاعية يصبح من الهدافين ويسجل امامنا اوتاميندي اللي كان سجل في مرمى روثرهام في العام الماضي خلال مشوار اللقب الاف اي كاب. ادي بص الفاول اتعملت من ديفيد سيلفا بالعرض فرصة جديدة بعد كرة ووكر. وادي امامنا هنا برناردو سيلفا لم في سنتي يا ولد هنا في اللقطة الماضية كريك داوسون المراوغة الجميلة الاستلام بمراوغة من جانب امامنا هو برناردو سيلفا هدفه الثاني في هذه الليلة وهدفه الثالث هذا الموسم بمهارة بإبداع في اللقطة الماضية. ادي امامنا كون اجويرو كرة برناردو سيلفا اللي قعدها له ثم بعد في 2014-2015 ومستمر الموسم الرابع على التوالي والهدف الجديد وهاتريك برناردو سيلفا في الدقيقة 60 برناردو سيلفا يسجل الهدف السابع والهاتريك في هذه الليلة. السابع والهاتريك كرات العرضية من كل حد وصوب في مهرجان الأهداف وبرناردو سيلفا أمامنا هنا. بص الكرة والهجمة شوف التنويع والتحرك المميز. ادي محرز لدي بروين واحد من نجم اللقاء الاول النهارده الرياض وسجل هدف من فاول. ادي امامنا هنا التسديده يستحقها
كيفن دي بروين يسجل الأجمل والأمتع في هذه المباراة، لأن يعني بلغة كرة القدم هدف لعيب حريف ولاعب متمكن، الكرة تحت رجله ودون مسافة وتطلع بهذه. haddaynu imikii haatana jalleecno horyaalka wadanka Isbaanishka ee La Ligahana, kooxda Real Madrid ayaa guul muhiim ah ka soo gaadhay kooxda Sevilla garoonkeeda Ramon Sanchez Pizjuan kadib markii ay kaga adkaatay 1-0 kulan ka tirsanaa horyaalka wadanka Isbaanishka ee La Ligaha. qaybtii hore kulankii ugu adkaa toddobaadkan ee ciyaarta ee u dhaxeeyay kooxaha Real Madrid iyo Sevilla ayaa ku soo idlaaday eber ay ismari waayeen labada kooxood. markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta, labada kooxood ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed fiican, waxayna sameeyeen fursado halis ah oo loo malayn karay goolal. daqiiqadii 64aad kooxda martida ahayd ee Real Madrid ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-0 ka dhigay ciyaarta weeraryahanka reer France ee Karim Benzema oo caawinta goolkaasi ka helay saaxiibkiis Dani Carvajal. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-0 ay guusha ku raacday kooxda ka dhisan caasimadda wadanka Isbaanishka ee Real Madrid. iyaguna toddobaadkan gudihiisa ciyaar ka tirsan horyaalka La Liga ee wadanka Isbaanishka waxaa wada dheelay labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Celta Vigo, waxaana hoygooda lagu ciyaarayay kooxda Atletico Madrid. ciyaartuna waxay ku bilaabantay weerar celin ay sameeyeen labada kooxood ee Celta Vigo iyo Atletico Madrid. gebihaan qaybtii hore ciyaartu waxay ku soo gabagabooday eber ay ismari waayeen labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Celta Vigo. qaybtii labaad markii dib la isku soo laabtay ciyaarta, labada kooxood ee Celta Vigo iyo Atletico Madrid waxa ay halkii ka sii wadeen weeraradii xoogganaa ay midda kale kaga doonaysay inay gool kaga dhaliso isla markaana guusha sidaasi ku qaadato, balse labada kooxood dadaal aad u fara badan kadib way awoodi waayeen inay wax gool kala dhaliyaan. gebi ahaan iyo guud ahaanba ciyaartuna waxay ku soo gabagabooday eber ay ismari waayeen labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Celta Vigo. kooxda Granada ayaa guul daraniyo jab ku riday kooxda Barcelona garoonkeeda Los Carmenes kadib markii ay kaga adkaatay 2-0 kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee wadanka Isbaanishka. qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaaminayso kooxda martida loo ahaa ee garoonkeeda lagu ciyaarayay Granada. daqiiqadii labaad ee bilowga ciyaarta kooxda Granada ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta iyadoo oo ka dhigtay 1-0. goolkaasina waxa uu dhaliyay xidigooga lagu magacaabo Ramon Ases. qaybtii hore ciyaartuna waxay ku soo gabagabowday 1-0 ay ku hogaaminayso kooxda Granada. markii dib la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta, labada kooxood ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican oo soo jiitay labada taageer ee labada kooxood, waxayna sameeyeen fursado halis ah oo loo filan karay goolal. daqiiqadii 60aad kooxda Granada ayaa heshay rigoore, waxaana goolka u bedelay ciyaartoyga Alvaro Falino oo ciyaarta ka dhigay 2-0 ay ku gacan sareyso kooxda Granada oo garoonkeeda lagu ciyaarayay, isla markaana uu quuskooyay kooxda reer Catalonia ee Barcelona oo iyadu bariyihii ugu dambeysay heehaabaysay isla marhaantaana u dhutiyeysay dhaawac ka soo gaadhay ciyaartoyga Luis Suarez, Ousmane Dembele iyo Lionel Messi. inkastoo ay laba ka mid ah ciyaartoyga markii hore dhaawacnaa ay habeenkan xaadir ahaayeen isla marhaantaana ciyaarayeen waa Lionel Messi iyo Luis Suarez. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 2-0 ay guusha ku raacday kooxdii martida loo ahaa ee Granada. سولدادو حكم لقاء يعطي الأفضلية والبداية للهدف الأول. الله، كل الأمور تبرهن على أن برشلونة خارج الديار لا يطمئن، لا يقدم المطلوب. عند الدقيقة الأولى والثانية يسجل في مرمى تير شتيجن. نعم، هنا المشاكل. رامون عزيز يسجل في مرمى برشلونة عند الدقيقة الثانية. يبدو بأن دكة برشلونة أقوى مما هو موجود على أرضية الملعب. هل ينظهر مظهر المتواضع ولدينا فرصة خطيرة، محاولة وثاني الأهداف.
حدث في الكرة الماضية. تير شتيجن، خلينا نشوف القرار. يقول ركلة جزاء، نعم لمصلحة غرناطة. هكذا هو القرار بعد لمسة يد الرجل الياباني من علامة الجزاء هنا في غرناطة. الله، جول آخر يأتي. الفارو باديو يسجل إذن ثاني أهداف غرناطة. يؤزم الأمور بالنسبة لبرشلونة من علامة الجزاء بعدما صدت الكرة في يد فيدال. يأتي حكم اللقاء بمعية الفار يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء. weeryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta xidiga sanadka ee FIFA The Best waxaana uu ku gudoomay magaalada Milan ee cariga wadanka Talyaaniga. kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa si cajiib ah ugu garaacay abaalmarintani. weeryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo iyo difaaca kooxda Liverpool ee Van Dijk. Lionel Messi ayaa dhaliyay 54 gool 58 kulan oo ciyaaray sanadkaasi, waxaana abaalmarintani ka dulqaaday ciyaaryahanada kala Cristiano Ronaldo iyo Van Dijk. Lionel Messi ayaa loo magacaabay xidiga sanadka ugu fiican FIFA ee dhanka ragga FIFA Men's World Player of the Year muddo 6 sanadood ah, waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo kale oo taariikhda intan oo dhan ku guuleysta. Lionel Messi ayaa abaalmarintani kala qaaday sanadihii kala ahaa 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 iyo sanadkan aynu ku jiro 2019. daawadayaal intaas haddaynu kaga nimaadno natiijooyinka ay ku soo dhamaadeen kulamadii ugu dambeeyay laga ciyaaray horyaalka guud ee qaaradda Yurub ee Championka iyo horyaalada qaaradda Yurub. imikii haatan waxaad ku soo dhawaataan sheekooyin iyo falanqeyno ku saabsan kooxaha waaweyn ee caalamka ka dhisan gaar ahaan kuwa qaaradda Yurub iyo waliba ciyaartoyga oo ciyaara. kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee Barcelona ayaa dhexda kaga jirta dhibaatadii ugu weyneyd muddo sanado ah, iyadoo qaab aad u gaabis ah ku bilaabatay kulamada horyaalka La Liga ee wadanka Isbaanishka xilli ciyaareedkani. culayska iyo cadaadiska ugu daran ayaa saaran tababaraha kooxdaasi ee Ernesto Valverde, tababarihii hore Bilbao oo hore loogu eedeeyay guuldarooyinkii Champions League ayaa haatan ku darsaday dhib kale oo dhanka La Liga ah. inta badan jamaahiirta kooxdaasi ayaa iyo qaar ka mid ah xidigaha kooxda ayaan ku qanacsanayn qaabka Ernesto Valverde wax u kala wado, waxaana ay codsanayaan inay tahay waqtigii shaqada laga eri lahaa tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde. haddaba iyadoo ay arintani halkaasi marayso ayuu wargeyska fadhigiisu yahay Spain ee lagu magacaabo AS sheegaya in Valverde kama dambeyn aan shuruud looga dhigay inuu natiijooyin wanaagsan ka helo labada kulan ee soo aadan. taas ayaa la micnaa in Valverde uu gabi ahaanba shaqadiisa kooxdaasi ku waayi doono haddii uu wax wanaagsan kala soo laaban waayo kulamada uu dhawaan la ciyaari doono kooxaha kala Villarreal iyo Getafe. kulamadii lixaad ee horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 ayaa la ciyaaray iyadoo hoggaanka gool caawinta horyaalka la wareegay laacibka khadka dhexe ee reer Spain ee lagu magacaabo Kevin De Bruyne oo ciyaara kooxda Man City, kaasi oo leh 7 caawimood. xidiga xulka qaranka Belgiumka Kevin De Bruyne ayaa ciyaartoyga kale ee ka ciyaara horyaalka Premier League waxa uu ka sareeyaa 3 caawin. Emi Bende oo ka tirsan kooxda Norwich City iyo David Silva oo ka mid ah kooxda Man City ayaa ku soo xiga David De Bruyne, kuwaas oo leh min 4 gool oo caawimo. ciyaaryahanka kooxda Man City ee Riyad Mahrez iyo labada ciyaaryahan ee naadiga Liverpool ee lagu kala magacaabo Roberto Firmino iyo Mohamed Salah ayaa gool caawin horyaalka Premier League hoosta ka hogaaminaya, waxaana ay leeyihiin min 3 caawimood. tababarihii hore ee kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa dhaleeceeyay xidiga Liverpool ee Mohamed Salah kadib dadaalyaradii uu sameeyay daqiiqadii ugu dambeeyay kulankii ay la ciyaareen Chelsea. Liverpool ayaa
toddobaadkan gudihiisa ama maalintii sabtidii guul muhiim ah kasoo gaadhay kooxda Chelsea oo ay garoonkeeda Stamford Bridge ku ciyaarayeen kadib markii ay kaga soo adkaadeen 2-1 kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee wadanka Ingiriiska. Wargeyska Daily Express ee dalka Ingiriiska ayaa waxa uu shaaca ka qaaday macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan u maleynayaa in Mohamed Salah 10 ama 15 daqiiqo ugu dambeeyay kulankii Chelsea ay ahayd inuu dadaalkiisa intaasi kasii badiyo. waxay ahayd in xoogaa uu ka caawiyo Alexander Arnold dhanka garabka midig kadib Arnold wuxuu in badan ka ciyaari karaa gudaha isla markaana Roberto Firmino oo xooga gadaal u soo laabto. marka aad gaadho xilligan oo aad awood u lahayn inaad dhaliso gool saddexaad marka waa inaad si fiican u difaacdaa si aad u sii ilaashato natiijada ciyaarta. daawadayaal intaana waxay noogu idil faaqidaadaha iyo falanqeymaha ku saabsan kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub iyo waliba ciyaartooyga oo ciyaara. imikii haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni xirfadda ciyaartooyga. toddobaadkana waxaynu daawan doonaa muuqaal ka turjumaya ciyaartooyga reer Brazil ee Neymar Jr. daawasho wanaagsan.
وهاجاك داوديال intaana waxa inoogu dil barnaamijkeena ciyaaraha oo aad ka daawaneyseen telefishinka madaxa banaan ee Raya TV barnaamijkana waxa idin daadihinay isla marhaantan idin soo diyaariyay iskuna soo diburiday anigoo ah Abubakar Farxaan Cabdirooble Abubakar Abka inta barnaamijka ay ku kulmi doono waxa idin kaga tagayaa sida iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh صعب بدن هالوقتمو صعب بدن هالوقتمو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحوي ترتان لوغو باقي بوشي خير يدوما يا أبو صعب بدن هالوقتمو